Assalaamu calaykum asxaabta isku soo noqosho wanaagsan iyo dhacdooyin kale oo xiiso leh. Inta badan dhacdooyinka aynu halkan kusoo gudbino waxaynu eegnaa laba qodob oo ah inay yihiin kuwa xaqiiqada ugu dhow iyo qaar inay noqdaan qalbiyada ay xamili karaan oo ay qaadan karaan. Waayo waxaa jira qaar been ah iyo qaar ay qalbiyadu aysan qaadan karin. Kusoo dhawaada muuqaalka. Hooyadan iyo labadeedan gabdhood gurigan ay ku nool yihiin waxay kala kulmaan waxyaabo aad u dhibaato geliya ciyaalkan yaryar ama labadan gabdhood ee yaryar. Muuqaaladii laga qaaday mid ka mid ah ayaa waa kan ay hooyadu soo duubtay. What? I'm scared. It's okay. I just turned off the lights, that's all. Labadan gabdhood ee walaalaha ah inanta yar ayaa wax dareentay xagga dambe ayayna eegtay iyadoo cabsanaysa. Inanta weyn ee walaasheedna waa ay ku qoslaysay waayo bilaa sabab ayaa ay iskaga cabsanaysaa ayay aaminsanayd. What was that? In yar kadib inanta yar waxaan waa ay dulqaadan kari weysay waxaan ay dareemayso kadib hooyadeed ayaa ay u tagtay. Markan laakiin si run ah ayaa ay wax u dareentay. Turn around. But you gotta listen to me. Turn around. Look at me. What's the matter? Ay dareentay in xaggeeda dambe ay wax ka jiraan kadib waxay ogaatay inay wax joogan aad bayna u naxday oo cabsatay una oysay. What's the matter? Qoftan shaqo badan maalintii kadib habeenkii ayay guriga kusoo hooyatay si ay u seexato laakiin waxa ay seexataa cabsi daraadeed waa ay seexan kari weysay habeenkii oo dhan ayay soo jeeday waxaana dareensiiyey inay guriga wax la joogaan aygeeda. What is it? Eygu eegidii waxa uu ku darsaday inuu aad u cadhoodo iyadoona aad bay u naxsaneed ula yaabanayd bal waxa dhacaya si ay u ogaato. Habeenkii oo dhan waxay ku sugnayd cabsidan xitaa cabsida hayse heer ay gaadhay kuma aysan fikirin inay furto albaabka oo ay soo ogaato albaabka gadaashiisa bal waxa ka jira. Abiyo Hernandez markii uu guriga kusoo noqday waxa uu soo noqday gurigii oo gebigiisba foodaysan alaabtii la isku dhex dhigay albaabadii ay furan yihiin. Kadib waxa uu go'aansaday marar badan markii ay kusoo noqotay arrintani in uu kaamirad guriga ku sii xidho si uu wax u ogaado waxayna duubtay xaalooy la yaab badan.
muuqaalada qaar waxaa lagu furayaa tashwiish si aad moodid in la diidan yahay in wax laga duubo. Hernandez markii arrintani kusoo noqnoqotay waxa uu soo qaatay kitaab loo sheego in uu jinkaas soo xaadiriyo kadib waa uu ku akhriyay laakiin guriga dhexdiisa maxaa ka dhacay. El motivo de estar grabando es porque huele muchísimo a perfume de mujer y se escuchan otra vez los tacones. De hecho, el aroma es muy fuerte. A mí me agrada, no tengo problema. Es un perfume agradable. Pero el problema es que los tacones que... Ahí está, escuchen ya los tacones. Escuchen cómo se viene para acá. Hernandez gurigan uu jinka kula nool yahay waxa uu kala kulmay dhibaatooyin aad u badan.